munaasabadan cashada iyo afurka ayaa ahayd mid isbarasho wacdi iyo guubaabin isugu jirtay waxaana soo qaban qaabiyay guddiga ganacsatada magaalada Nairobi. munaasabadan ayaa lagu marti qaaday siyaasiyiin ay ugu waaweynayeen ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka Soomaaliya soo maray Cali Khaliif Gallayr, Cali Maxamed Geedi iyo Umar Cabdirashiid, xildhibaano isugu jira kuwii hore iyo kuwa hadda xildhibaanada ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, Darwiish iyo Axmed Macalin Fiqi oo marar kala duwan taliyaal ka soo noqday sirdoonka Soomaaliya ayaa iyaguna goobta ku sugnaa. musharaxiintii u tartamay xilkii madaxweyne ee Soomaaliya Professor Badiyo iyo Yusuf Garaad Umar ayaa goobta lagu casuumay iyaguna. sidoo kale xildhibaano ka socday dowladda Kenya oo horbooday Ilyas Barashiil ayaa lagu marti qaaday goobta. shirkan ayaa diiradda lagu saaray sidii looga wada shaqeyn lahaa nabadeynta dalka Soomaaliya guud ahaan iyo sidoo kale sidii midnimada dadka Soomaaliyeed loo wada raadin lahaa maadaama waayihii u dambeeyay ay soo cusboonaadeen cudurro ay Soomaalida hore u iloobeen oo ugu weyn yahay qabiilka. ra'iisul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Gallayr iyo Cali Maxamed Geedi ee goobta khudbada ka soo jeediyay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ummadda Soomaaliyeed u leedahay wadajirka iyo nabadgelyada ummadda in si isku mid ah looga shaqeeyo. isagoo Cali Khaliif Gallayrna uu sheegay in goobta intii ay fadhiyeen in dad warxumo tashiila ay qoreen shirku uu yahay mid lagu afgambinayo dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan hadda ku arkayay one of the websites war degdeg oo hadda meesha lagu sheegay oo ah in hotelka Grand Regency lagu shirinayo dad raba inay dawladda afgambiyaan. afurkan nala ku sharfay waxaan u qaadanay inay laga marmaan tahay in fariin nabadeed, fariin midnimo, fariin colaad joojineed loo diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto. dhinaca kale afartii xildhibaan ee ka socday dowladda Kenya oo kulligood goobta ka wada hadlay ayaa ku dheeraaday sidii ay u saameysay dagaalada ku soo noqnoqday dalka Soomaaliya iyagoo sheegay inay markii hore Soomaaliya u ahayd hooyo ay ku faani jireen balse taas hadda ay meesha ka baxday. waxaan aaminsanahay aniga dowladda Kenya in ay support garaysan tahay ama ay taageersan tahay in dowladda Soomaaliya ay ku istaagta labadeeda lugood. wariyaa 550,000 ayaa ku nool qaxooti ah wasoo gabanay. maxaan rabnaa? waxaan rabaa dadkii inay nolol yeeshaan, inay noqdaan kuwa ku dhashayna inaan Kenyaan ka dhignaa rabnaa. kuwa kale soo barakacayna war dhulka quruxda badan inay ku noqdaan ay maartay wax dhistaan doonayna. laakiin maanta maxaa dhacay? dadka ku soo dhaweeyay Kenya wax bay gadan rabtaa, dhul bay boobi rabtaa, badrool bay gadan dhisan rabtaa, waxaasaan nagu furteen. war badrool inka wadanka waasiinana goorma helayna. Abdifataax Maxamed Cilmi, Home Cable TV, Nairobi.